inkastoo inta badan dhaqaatiirta iyo qubuurada caafimaadka ay aaminsan yihiin in galmadu ay u fiican tahay caafimaadka oo ay hoos u dhigto cadaadiska walwalka islamarkaana ay madaxa u dejiso lamaanaha ayaa haddana waxaa la isku raacsan yahay in wax kasta oo xadka dhaafa in aysan wanaagsanayn. waxaa la sheegay in tirada galmada ugu wanaagsan ay tahay isbuucii 2 goor ama hal mar. way jiraan lamaano isku galmooda dhowr jeer isbuucii, khaasatan bilowga hore ee xiriirka, balse marka ay lamaanuhu muddo wada socdaan ama ay caruur isku dhalaan waxaa dhacda in ay hoos u dhaco heerka galmadooda. inkastoo aysan jirin tiro la isku raacsan yahay oo haddii laga badsado ay galmadu caafimaadka wax u dhimayso, haddana waxaa la og yahay in khaasatan dumarka uu xanuuno jirka ah u keeni karo galmada badan. xubinta galmada ee dumarka waa mid u baahan qoyaan marka loo galmoonayo. marka ay galmadu badato waxaa dhacda in ay qoyaankaas uusan ku filnayn, iyadoo xitaa lamaanaha qaar ay isticmaalaan kareem iyo wixii lamid ah. ragga xitaa ayaa dhacda in xubinta uu xanuuno ama ay kaadidu dhibto galmada badan kadib. sidoo kale ragga qaar waxaa ku dhacda in ay kacsan waayaan marka ay galmada badsadaan oo xitaa iyaga oo doonaya uusan xubinta u kacin. ragga qaar ee da-dooda ka yartaa 30 sano waxay ku qaadataa daqiiqado in ay kacsadaan galmada kadib, halka ragga ka weyn 30 sano ku qaadan karto saacado ama maalmo in aysan kacsan. dumarku iyagu ciladan ma qabaan oo hore ayay ka kacsan karaan marka ay biyo oo baxaan kadib. arrintan la isku raacsan yahay ee dhibaatada galmada badan ayaa ah mid la xiriirta nolosha. haddii aad tahay qof si joogto ah uga fikiraya galmada oo markasta raadinaya, oo taasi ay keenayso in aad ka mashquusho waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha sida shaqada, cibaadada, cuntada iyo wixii lamid, taasi waa galmada oo balwad noqotay, caafimaadkana uma fiicna. weliba waxaa talo ah in aad dhakhtar la kulanto si aad u hesho talo ku saabsan arrintan.